السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا لما aad baa idin salaamay. maanta waxaan rabaa meesha inaan uga hadlo sidee Facebook page-ka lacagta looga sameeyaa. saan wada ognahay Facebook page-ka saaxib yaa lacag baa laga sameeyaa waliba lacag ka badan lacagaha mataqaana YouTube-ka ama mataqaana meelaha la midka platform-ka online-ka laga sameeyo in mataqaana eg baa runtii waxa way laga sameeyaa. marka maanta waxaan rabaa inaan waxa saaxib fursadan waxa way aan idin share gareeyo mataqaana maadaama dhalinyarada badankood ay raadinayaan meelo ee mataqaana lacagta qaab online ka lacag uga sameyn lahaayeen. runtii aniga waxaan jeclahay mataqaana inaan saaxib idin tilmaamo meelo muhiim ah oo waxa way aan lacagta mataqaana aad ka sameyn kartaan oo mataqaana si u kala fududihiin waliba ma Facebook page marka waxaan u arkay inay aad u fududo Soomaaliyeena aan runtii aad u isticmaalno oo qof kasta maanta inay ka mid ah almost uu leeyahay account at least account Facebook uu leeyahay page uu samaysan karo mar hadda account leeyahay page waa samaysan kartaa way ku fududaa isla account dhexdiisa baa ka leedahay create page. marka waxaa rabaa shuruudaha laga rabo qaabka Facebook page ka lacagta looga sameeyo iyo adiga mataqaana qaabka aad uga faa'iideysan kartid. maalmahan dambe ma aqaa inaad aragtin idinkana dad fanaaniin ama dad mataqaana caan ah baa waxa sameeyaan waxa arkaysaan Facebook intuu samaysto wuxuu soo gelinayaa video content oo xitaa qayb kamid uu asaga lahayn ama YouTube ka soo qaato dad kale mataqaana YouTuberada videoyaha ka soo qaato oo views fiican helayo. marka waxa laga yaabaa inaad ogeyn laakiin qofka fanaanka ama qofka mataqaana YouTuberka lacag badan buu ka sameeyaa Facebook page-ka oo mataqaana ana caadi ahayn. marka hala yaabin adigana waxaan waa saaxib mataqaana maanta aan ku sheego qaabka Facebook page u sameyn lahayd shuruudaha mataqaana laga rabo intaada monetize lagu sameeyo ama lacagta lagu bilaabin iyo mataqaana videoyada aad ka faa'iideysan kartid. hatta muhiim ma aha in aad videoyada aad sameysid dad kale videoyada ama mataqaana wali Soomaaliyeed aad u jecel yihiin mataqaana waa ranki waxa dhahaan ayu riwaayadaha iyo mataqaana vlogyada noocaas bay runtii aad xiiseeyaan. waxa cajiibka waxaan arkay dad xitaa maalinkii wax soo gelinayaan 10 video oo halkii video laga yaabo inuu daawado ugu yaraan 100,000 views inuu helo baa laga yaabaa. videoda asaga waqti ma gelin kharash kama gelin YouTuber kale videoda buu ka soo qaatay. marka qofkaasi lacagtu sameynayo lacag aan caadi ahayn way. marka adiga ay daawanaysaa waxaa rabaa mataqaana inaan mataqaana mashruucaas ila bilowdid aad sameysid mataqaana tijaabisid sida qaabka online ka lacagta looga sameeyo waxa ka badan hal wado ama hal mataqaana source adeegshid income ka soo galo kaliya baa ka badan macna inuu ku qarxa una ku shaqeeyo. aniga runtii wallahi aad baa jecel dhalinyarada inaan waxa way markasta aan fikradaha mataqaana u soo dhigo shuruudahan aan u sheego si action u sameeyo laakiin adaa laga rabo inaad ficilkii u bedeshido aad kaliya videoga dhageysan haddana mataqaana aad waxa way aad ka faa'iideystay. saaxib yaal marka hore waxaan idin ka codsanayaa inaad waxa way channel-ka support gareysaan waxa videoga wax ku anfaca hadaa ka heshay like noo saartid sidoo kale qaabka online ka looga shaqeeyo baan mustari almost every day kan video uga soo gudbiya hadii aad jeceshahay inaad mataqaana dhaqaalaha ka sameeyay online-ka anigana aan waxa khibrad u leeyahay wax badan aan ka shaqeeyo ina waxa way nagu soo buurtido channel-ka waxa subscribe noo saartid gambalka furtid saad noqotid update ku horeeya aad mar walba aad u heshaan. laakiin waxa rabaa inaad u soo dago Facebook page-ka Soomaali ahaan sidee lacag mataqaana aan uga sameyn karaa. horta marka hore waxa muhiim ah inaad page sameysid Facebook page baad markood muhiim ah inaad sameysid wayna fududa qaabka loo sameeyo waxaan ku yiraahdaa account-ka caadiga adoo ku dhex jiro baa meesha ay ku qoran tahay page bottom-ka page-ka ay ku qoray sa aragteen ma qaana page baa wuxuu ku jira meelaha mataqaana events page sidoo kale waxa meesha waxa laga helaa arinka asxaabta kale meelahaas buu bottom-kaas marka waa soo furaysaa page-ka meesha oo waxa ku soo baxay create page oo kale page samee then way fududahay go ahead magaca rabtid waxa way inuu ku qoran inaastada waxa jecesha ku qor saas buu numberkaaga waxa gelinaysaa mataqaana hadaa website leedahay website leeyahay milih baa leedahay kadib saas buu kugu sameeyaa waa within maana of 2 minutes waa laga yaabaa inuu mataqaana Facebook page kugu sameeyo. marka ka weyn sax wax weyn ma inta kaliya sameeya. qodobka labaad ee Facebook hadii aad lacag ka sameysay xab waxa way asna waxa way inaad hesho 10,000 oo follower 10,000 oo follower saa ogtiin Facebook wuxuu leeyahay shuruudo sida mataqaana YouTube ku leeyahay shuruudo lacag sameysay. YouTube shuruudiisa waxa kamid ah hadaan wax yar halkaas mataqaana aan asa u fahantaan aan fahansiyo YouTube ka laba shuruud mustal buu u baahay inaad kun mataqaana kun subscribe heshid
at the moment aad kun subscribe heshid Facebook and YouTube ka I mean waxa weeye waa point fiican baa sameeyay talamaadna waxa weeye 400,000 oo watch hour macnaha in la daawado muddo waxa weeye 12 bilood gudaheeda ama hal sano marka hal sano inaad ku gaadho kun subscribe 400 saacadood inuu kugu daawadaan 12 bilood gudaheeda labadaas shil marka bixis YouTube lacagta uu ku bilaabaya oo active ku noqonaya monetize waxay siinta lagu soo deynaya kadib lacag baa saa ku soo dhacaysa same scenario weeye mataqaana Facebook waxa laga yaraa 10,000 follower waxa laga yaraa 10,000 wax badan maahan saa waqtiinba mataqaana Facebook uu ka dad badan yahay YouTube ka oo Facebook aad u badan qof walba Facebook marka 10,000 wax isla markii waad ku gaari kartaa dad 6 bilood oo kale aad joogtaysid fiidiyoodo dadka aad u xiiseeyaan oo kale dad joogtaysid waa gaari kartaa wax weyn maaha talabaadna ayada waxa weeye ina waxa weeye 3,000 saacadood lagu daawado muddo waxa weeye 60 bari gudahooda 3,000 saacadood laftigooda aad bay u fududahay hadda hal video YouTube ama Facebook iska soo dhigtid waxa laga yaabaa inuu dad badan ma daawado 60,000 70,000 60,000 views inuu gaaro baa laga yaabaa soo wax badan xataa ku jirin ma la yacni marka uu ka views badan yahay qof kasta Soomaaliyeed maanta waa ogtaana platformka aan u badanahay maanta Soomaalida siyaasadda hadii lagu jiro dhalinyarada waxbarasho meesha update kala qaato waa Facebook marka Facebook ina mataqaana audience heshid ama dad heshid uu ka fuudiyaa oo YouTube ba mataqaana ba ka dad yar oo laakiin Facebook aad buu u fuudiyaa marka labada sharuudood waa laba sharuud ugu horeeyo monetizing marka rabti waxa in Facebook page lagu sameeyo labada sharuud marka buuxsid waxa asal mataqaana sharuudo kale saddexaad soo raacay waxa weeye inaad waxa weeye ka weynta 18 sano ayadana mataqaana waa qodob muhiim ah dabcan taasna de marka hore baad ka shanaysaa ay way fududahay intaas mataqaana mustari waa dadka intaas ka weyn marka saddexda sharuudo inaad page sameysid 10,000 follower sameysid 30,000 qof ay ku daawadaan iyo ina waxa weeye 18 sano aad ka weynta inta marka sameysid ayadana waxa muhiim inaad isla garano xagee ka helaysaa content fiican ama video fiican xagee baad ka helaysaa waxa laga yaabaa inaad anigu kamarad ma haysto mobile fiican ma haysto mataqaana waxa ma soo dhigi karo laakiin dad badan waxa jira Soomaali ah oo YouTuber ah oo mataqaana aan xiiseenin mataqaana intaad ka soo qaaday riwaayadooda iyo prank-ka sameeyay ama dad YouTube ka runta caanka ah aad loo daawado intaad soo qaadatid ba waxa soo gelin ka dhaay mataqaana Facebook page-kaaga oo waxay mataqaana views-ka halkaas baad ku helaysaa halkaas ku kala kacaya lacag fiican runtii ka soo galaysaa marka dad badan ba waxa moodaa inay moodaan kaliya Soomaalida in YouTube ka lacag laga helo laakiin Facebook page si lagu dhacay laakiin xataa markii lacagta la fiil labadooda yaa lacag badan waxa lacag badan Facebook page-ka uu ka dhaqaale badan yahay YouTube oo mataqaana fiidiyoda soo gelisid dhaqaale fiican baa lagu siinayaa oo 300 400 shaqo laga yaabaa views aad yar oo 3,000 views halkii video inuu si inta laga yaabaa marka haddaad maalmo joogtaysid at least maalinkii hal video fiican soo gelisid 3 bariba waxa weeye waa dareemi kartaa 2,000 ilaa 3,000 dollar laga yaabaa inuu ku soo dhaco bil kasta taa marka mar walba dhalinyarada isweydiiyaan waxa kamid ah payment method-ka qof Soomaali joogo sidee buu YouTube-ka Facebook uga sameyn karayo bangiyadii baa Soomaali iska adag sida YouTube kale way Soomaali dhalinyarada Soomaali joogo YouTuberada ma haystaan address-yo ma haystaan bangiyo lacagta toos dabcan uga soo dhacdo la qof qurbaha joogo asxaabta ama family-gooda bay address-kooda bay ku xirteen account-kooda number-koodana bay gashteen bangiga marka muhiim ahaan magaca kugu qor magaca caadiga baa laga yaabaa Facebook page kugu qoran yahay laakiin bangiga lacagta loo dirayo muhiim ah inuu ku qoran yahay mataqaana bangiga inuu isla haado macnaha oo si soo dhici contradiction ma u baahna sida website-da qaar YouTube hadda waxay u qongeela Bashiir magaca caadiga oo mataqaana passport-ka igu qoran yahayna waa Cabdiraxmaan Bashir Axmed kaas baa mataqaana bay igu qoran yahay markii noqoto lacag bixinta iyo markii noqoto waxa weeye legal name-ka marka waa caadi magacaaga ninaastada ama magacaaga caadiga baad waxa uga dhigi karaa ciwaan laakiin bangiga aad gelinaysid qof kale family-ka qurbaha joogo kale bangigiisa waad gashanaysaa marka qofkaas dabcan lacagta lagu soo diraya qofkaasna dee adaa yaqaan saa lacagta dhees igu soo diray waa sida YouTuberada Soomaaliya ay joogaan oo kale taas bay sameeyaan tib kale in wadankiisa ogta masaaxib yaal address ma lahan bangiyadii waxa weeye mustari iska international ma ahno lama aqoonsana marka localkaas taas baad ka badbaada ka dhahay payment method-ka dee wixii maanta la sameeynayay waxa u baahan tahay reward-ki ama lacagtiisa ku soo galeed marka taas baa sameyn kartaa mid kale ma sameyn kartaa marka waxa sameeyaa intaana marka shuruudaha bixisid in adigu waxa way mataqaan aad apply gareysid aad dhahdid bilaaba lacagta
او request review waa inaad mataqaan dalbatid macnaha way jeekimi inaad shuruudii bixisay waxa qaataa waqti badan ma qaato hadda youtube kala badan wuxuu qaataa mataqaana week buu qaataa ilaa la week inay ku check-gareeyaan hadii waxa ku soo dirayaan caddeyn ah number bay ku soo dirayaan oo ah address-ka degan tahay inuu sax yahay oo adiga aad ku nooshahay address-ka meesha gelisay bal uu soo dirayaa number sireed weeye number sireedka waxa gelinaysa marka email ay ku soo dirayaan baa gelinaysa marka qofka meesha jooga address-kiisa aad ku xirtay mataqaana Facebook page-ka baa mataqaana post ahaan baa waxa uu soo dhacay number oo ay soo dirayaan Facebook ay ku soo dirayaan number sireeda marka boosa loo istaxmid bay qaata mar qofka ay u soo dhacdo waa soo qaadanaysaa adoo ku soo diraya meesha u baahnid baa gelinaysaa waa isku dhamaatay marka isla markaas automatic numberka duu sax number sax oo ku soo numberka adu ma alif kari ha isku day inaad gelisid number aad aqoonin waa inaad sugtid weeye loo bay qaadan kartaa caadi weeye waxa wadnaha qofka u soo dhacdo buu ku soo dhacaya saas active warta marka uu ku shaqay lacagta ku bilaabanaysa si bilaa bay lacagta waxa weeye bay saaxiibayaal bay u bixiyaan bisha dhamaadkada kale bay lacagta ku soo diri laakiin lacagta inta aad samaysid inta mataqaana fees heshay bisha inta lacag heshay inta mataqaana follow aad heshay dashboard baad ka daawanaysaa oo qofku mataqaana kuma gaadi karo bisha hadii 400 ku soo diraan waa ogtahay in 400 ee qofka ay u soo dirayaan macnaha wax ma ahan dashboard-kaaga ba information dhan saaxib baad kala soconaysaa marka saaxib yaal runta idin sheegaya Facebook page-ka lacag fiican baa laga sameeyaa isku day waxa weey saaxib inaad wax aad ka faa'iideystaan runtii waxa weey juhdina aad gelisaan commitmentina aad muujisaan sidoo online ku xubnahay saaxib yaal commitment ina ogeena 3 bilood 6 bilood aad waxa weey kunta dhish aad iska dhigtid aad ku dadaashid hadii kale waxa weey Soomaaliyeena commitment runtii ma lehino qofku wuxuu waxa loo mataqaan maalin taajir oo mataqaana inuu wuxuu rabo haduu maanta video soo geeyo bilis ama ugu dambe oo lacag weyn sameeyo taasna ma aqoon laakiin inuu barto juhdi badan gelisid like aad soo bixisid soo dadaashid macna waxa mataqaana waa passive income weeye sida passive income marka hore inaad adigu soo jabtid hatta mar qaar waxa noqon lacag ku bixisid laakiin Facebook hada wax lacag ka baahna camera ka baahna sida YouTube kala maahan aad qalab iyo adeeg badan aad soo gudbin intaan bilaabin kadib mataqaana lacag ku bilaabin marka juhdigaas sameey insha Allah saaxib community badanna hala muujiyo oo leeyahay wuxuu baahan saaxib ya dulqaad sababtii noloshu life waxa weeye mataqaana isna shortcut waxa la ma jiraan oo qofka inuu hal maalin taajir ma jiro waxa waa loo soo jabay kadib waxa weeye gadaal baad waxa weeye baad ka nacawsanaysaa saaxib yaal markale waxa idin